waxaan rabaa halkan inaan hal arin uga faa'iideysto oo runtii aad muhiim iigu ah ama aan u arkayo inay ahmiyad gaar ah leedahay waxa weeyaan abaabulada socda iyo mudaharaadyada iyo arrimaha magaalada Muqdisho laga abaabulayo oo siyaasiyiinta ay abaabulayaan laba qodob aan rabaa inaan ka iraahdo qodob waxaan rabaa inaan iraahdo siyaasiyiinta abaabulka ku jira iyo dadka arrimahaas ku howlan dhinacna waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku nool inaan iraahdo labada kelimo waxa weeyaan mid koobaad horta mar haddii aad adigu doonayso doorasho haddaad rabto dalku inuu doorasho aado haddaad sababtaad u mudaharaadaysaa ay tahay inaad doonayso in dadku codkooda dhiibtaan inaad xil siyaasadeed dalka qabato taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ogolaanaysaa systemka iyo nidaamka dalka dawladda ka jirta baarlamaanka jira nidaamka madaxweynaha jira xukuumadda jirta intaba waxa sharciyada siiyay baarlamaanka laftirkiisa siiyay iyadoo la isku raacsan yahay oo dawlad goboleedyadu ay qayb ka yihiin ayaa heshiiskii 17 September la gaaray ayaa wuxuu awood siinayay hay'adaha dastuuriga inay jirayaan ilaa kuwa kale ay bedelaan mar hadday sidaa too ayagii sharciyan ay jiraan ayna dhici jirta mar walba inay doorashooyinka dib u dhac inuu ku yimaado ma aha wax la amaanayo ma aha wax amaan mudan laakiin dacni dalka meeshuu ka yimid iyo qaabka uu sadgaraysan yahay ama uu u samaysnaa iyo duruufta ku xeerana waxay keenaysay mar walba inay wax dib dhac yar u yimaado dib dhaci kani kama bedelna waa isla dib dhaci haddana waxaa la gaaray oo baydhabo lagu soo gaaray heshiis ah in kama dambaysta yacni in doorasho la isla ogol yahay qodobadii lagu hayana laga heshiiyey hore loo aado haddii aad marka doonayso inaad doorasho dalku aado oo aad orodkaaga iyo sababta aad u mudaharaadayso ay tahay in doorasho dalkii aado dowladii ogolaatay doorashadii waa la ogolaaday waa la isku raacay dawlad goboleedyadii iyo dawladii federaalka gudiyada dhiseen baa aqbalay sabab ma jiro marka guryaha loo jabiyo sabab ma jiro dadka loo soo bixiyo sabab ma jiro caro iyo cuqdad iyo dhibaato loo abuuray ma jirto waxaan maqlay runtii in abaabul ciidan lagu kabayo mudaharaadka waxaan rabaa inaan xasuusiyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalkan soo xukumay ee doonaya inay bari xukumaan in dhibaato iyo mashaakil amniga mas'uuliyadiisa cid baa iska leh ciddii kale ee qori la timaada ee inay amniga saamayso isku dayda ama ay inay xabad ku rido isku dayda ama xataa isku dayda inay si shakhsi isu difaacdo ayadoo oo u maraysa dariiq aan sax ahayn waxay dhaawacaysaa sharciga iyo qawaaniintii dalka ka hor imaanaysa xaq uma laha qofna inuu hub abaabulo inuu ciidan abaabulo inuu yiraahdo mudaharaadan aan ila mudaharaadku xaq weeye dabiici iyo qof kasto Soomaaliya uu leeyahay dastuurka aan cadeynaya laakiin xaq waxaad u leedahay si silmiya oo nabadgelyo inaad u samayso mar hadduu yimaado in la abaabulo oo ay timaado in hay'adihii amniga looga hor yimaado oo ay timaado isku dhac inaad abuurto laana ciidan kasta oo aan ciidanka sharciga ah dawladda ahayn ee la yaqaano ee hub qaada asaga dambiile ah qofka keenay ee ciidanka amarka siiyana dambigu la taxamulaya dambigu qaadanaya marka in la abaabulo ciidan iyo awood ciidan si aad mudaharaad u ilaaliso qiil ma keeni karta inaad hub qaadato magaaladan ku dhibaatayso ku dhaawacdo siyaasiyiinta marka waxaan u soo jeedin lahaa inuu caqliga saxda ah shaqeeyo xabad intayna soo marisay iyo muddadii wax naga soo khasaarisay iyo sidii mustaqbalka ciyaalkeena ay u dhumisay iyo magaaladan Muqdisho wali garaafooyinkii iyo haarihii xabaddu ay ku yaalaan inay siyaasiyiintu si fiican uga feejignaadaan inaanay ku degdegin khalad istiraatiijiya oo maalin la galo oo cuqdad iyo cabasho aan runtii isleeyahay hadda tabriir ma laha haddaad hore wax u raadinaysay haddaad dareensaneed inuu dulmi jiro haddaad xataa wax dhibsanaysay hadda waxaa lagu yiri dalkii doorasho aadaya waana lagu heshiiyey qiil ma jiro marka hadda kuu saamixi kara ama kuu soo dhaweyn kara inaad hub qaado ama aad mudaharaad hub abaabusho ama dadka isaga hor keento ama wiil Soomaaliyeed aad u dishay gabar Soomaaliyeed taa horta waxaan leeyahay siyaasiyiinta dadka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho degan waxaan dhihi lahaa sarahan quruxda badan iyo guryahan quruxda badan iyo magaaladan quruxda badan iyo dadkana maartay maantay alxamdulillah amni iyo nabadgelyo ilaa xaddi ma aynan qof Soomaaliyeed cadawgu waxa ay sameynayaan waa wax kale laakiin qof Soomaaliya oo tahdiidinaya ama qori la kortaagan uusan jirin inaan loo bedelin oo aysan aanan ka aqbalin qofna inuu dabeecadaas bedelo caadiga amnigaas inuu saameyn ku yeelo inuu bedelo inuu guryaheena jijibiyo in dhibaato dhaawac loo geysto nolosheena iyo nafteena waxaan hubaa abaabulku waa fudud iyo xabada la abaabulo laakiin marka xabadi dhacdo la qadar Allah ilaahay kama rajeynayno waxaan rajeynaynaa inuu caqligu shaqeeyo waxaan rajeynaynaa inaysan in laga waantoobo falal kasta oo keeni kara inay amniga dhaawac iyo dhibaato gaarto laakiin waxaan hubaa daqiiqada xabadi dhacdo
dadka siyaasiyiinta ee abaabulaya programkan falaydka ugu horeeya dadka raacay noqon doonaan, dadka safro ugu horeeyo dalka ka tagay noqon doonaan, dadka maanta la abaabulaya marada loo bitinaya ee dhalinyarada ah ee la leeyahay soo baxa ee la leeyahay soo mutaharada ee la leeyahay hebel qoriyo idinku ilaalinaya ee la leeyahay anaga goobta idinkaga horeynana kuwa laga tagay xabada dhexdeeda looga tagay noqon doonaan. amniyaad haysataa, gurigaagaad ku nooshahay, maanta nolol ilaa xaddi maa sayfahaad ku jirtaa, naftaada u baahan inaad ilaaliso, dalkaaga u baahan inaad ilaaliso. dalkani doorashuu aadayaa, waana la ballan qaaday. annagaan aqbalaynin in dalkani doorasho la-aan noqdo, dowladdaan aqbalayninoo hadda cadaynaysa ama cadaysay ama kusoo heshiisay marnaba suurtagal ma aha dalkan inuu doorasho la-aan noqdo. laakiin yaan qof doonayo hadduu raba xataa inaysan doorashadu dhicin ee dana kale leh ee raba inuu wax adkeeyo ee raba inuu qiil helo oo maarata wax kusii adkeeyo ama kusii mucaarado yownan mustaqbalkaaga ku ciyaarin. wadankan hadda waxaa ka jira cudurro, habeen walba isbitaallada lagu dhimanayaa, covidkii baa aad u soo xoogaysanaya. in lagu taliyo maanta in mujtamac dadka la isu keeno, in la yidhaahdo meel isugu wada imaada, inaan xataa caafimaadkoodii aysan ku ahayn siyaasiyiintu aynan dhiiri gelinaynin kala fogaanshihii iyo amarkii dowladda inaan la qaadanaynin, in sidii la rabo loo dhaqmaayo macnaheedu waxay muujinaysaa dareen mas-uuliyad daraahay muujinaysaa. marka aniga dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa yaan lagu fiirinin hadalka qofka ku dhahayo mucaarad iyo muxaafid ha ku qiimeynin, laakiin caqligaaga saxda u celi, duruufta aad ku soo kortay u laabo, muqdisho xaaladay soo martay qiimee, naftaada qiimee meesha aad joogto, waxbarashada iyo maanta intaan haysana qiimee. yaan qayb laga noqonin afcaal ama ficilo oo wado qof doonaya inuu berri duulo marka wax dhacaan. naftaada ha ku haligin, qabyaalad ha ka shaqaynin, hebelaan taageersanahay iyo hebelaan diidanahay yaynan macno kuu samaynin. dalkaanaad leedahay, ilaalinta magaalada muqdisho iyo amnigeeda iyo wadajirkeeda macno kuu samaynaya. waxaan kuu hubaa oo aan caawa haddii ilaahay qadaro aan halkan ka cadayn karaa inuu dalkaani doorasho aadayo, in dalkan qof walboo ka mid ah hadduu xildhibaan yahay iyo hadduu madaxweyne yahay inuu doorasho u diyaarsan yahay inuu aado. marka adoo hubtidba inaad aadayso meesha aad rabto ama laguu sheegayo in la aadayo, sabab au qof kuu yiraahdo dhagaxa tuur ama derbiga istaag ama xabad qaado macna ma samaynaysa, mana jirto. dadkeena Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa caqligu inuu taliyo, waxaan u soo jeedinayaa qofka xorriyad ha la dhiirigeliyo iyo xorriyatul qowlka ha la ilaaliyo ugu horeeyana. laakiin dee xorriyatul qowl iyo qowlkoo la dhiirigeliyo waxaa jira ficil samayntiisa ay ka jurmiyo dembi badan tahay. maxaa la yidhahdaa laba ficil oo midna uu yahay inaad samaysaa fiican, laakiin waxa ka dhalanaha wax weyn ah, marka waa ka tegaysaa fiicnaan kan fiicanaad ka tegaysaa. waa xataa qaacido fiqiya waaye. marka dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan rabnaa inaynan akhafu dararayna jira, laba dhibkii yaraa la qaataa. marka inaan laydiin gacan beena laydiin babin oo aan laydin dhaqaajin oo marka aan meel cilaala idinkaga tegin ee aad arrinta aad ugu baraarugsanataan, runtii waa idiin soo jeedin lahaa. ma qaba in la mudaharaado, ma qaba in jumco ololaha hadda la wado iyo qaabka loo organize garaynayo waxay u muuqataa qaab cuqdad iyo dagaal iyo ciifo keenaysa u muuqataa. mudaharaad silmiyo nabadgelyo oo dadku ay isku soo bax nabadgelyo sameynayaan ma u muuqdo. marka taasaan ka digaynaa, waxaanan codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay aad ugu baraarugaan. shukran.